fiidnimo wanaagsan maanta waa la iswaayay shaqo qaran baan ku maqnaa mar walbo maala yacni uma joogno waajibaadkeeni dastuuriga inaan gudno waa laga maarmaan waaye caawa iyo saacadan haddaan taaganahay waxaa laga soo wacay magaalada Gaalkacyo waqooyigeedii dhinaca Puntland waxaa soo gaaray galmudug iyo maqal dhigahaaga fur reer galmudug may maqashaan Soomaali weyn may maqashaan 18 gaari oo tiknika ah Sheekh Xanaan muxuu ahaa Sheekh Salmaan wadaadadii suuqlayaasha ahaa u socdo ayaa caawa 10 habeenimo waqtiga Gaalkacyo soo galay ayaan bay soo gaartay shacabkii Soomaaliyeed gurmud qaran ee Gaalkacyo joogay ayaa warbixinta soo gudbiyay anigana waan ku qasbanahay inaan sheego wax ka qabashadeedina galmudug baa iskale aniga mali gawaaridaas 18 gaari waa laba gaari oo booyid ah booyidaha shidaalka qaado 11 gaari oo cabdibiliyaal ah meeqaba 3 gaari oo kuwa aan xabada karin ah ولا نقول اسكو دردر كوي طبن سدح قدر افر طبن وحقدر تا باشا مدين محوها وحقدر تا لبا قدر شري طبن لبا جاري او قوقنتان دول بنانكا بيكا كلو يقانو iyo hal gaari oo yudi ah oo rasaas iyo hub wada waay waxaa laga soo cabeeyay dekeda Boosaaso waxaana soo diray imaaraad baa soo diray al-sunna wal jamaa marka dagaal degdeg baa loo diray inuu dagaal dhaco 12 ama 11 biri ama biri dambe al-sunna inay ayadu wax weerartay rabtaa meesha hadda laga xishoonayo oo la leeyahay war halala hadlo oo irgaha lagu dayo oo walaalyaal war xabad ma rabno war dhibaato lama rabo meesha ay qoor ay ka tahay iyo hadduu ilaahay ku rooyo shacabka reer galbeed al-sunna waxaa ka go-an inay weerarto dhuusamareeb warkaan caaw aniga ka go-an inay dhuusamareeb weerarto inay tuulooyin ay weerarto inay weerar qaado ayadaa ka go-an haddana warkaan maqlay in saldhig ay ka heleen
cadaado zoonkeedii meel ah dhinaca gadan laba miya ma cadaado naftarkeeda aniga ma garan karo cid lagu xumaynayo ma garan karo ya galmudug ilaahigii untay baa ceshtay waxaana burburinayo oo baabi'inayo oo dhulka la galay maamulka Puntland ee uu hogaamiyo Jeert Ooman Siciid Cabdullaahi Daaniel dadku ma aqli badno ayagii waa la isqabadsiiyey ayagii waa la isku diray lacag baana shaqaysay baabuurtan aan idinku celiyo hal gaari UD ah 11 gaari cabdilbilyaal ah 2 gaari oo qooqan bikaab ah 3 gaari Land Cruiser ah 2 booyid oo shidaal ah ani meel ay mari doonaan ma ogi meel ay mari doonaan aniga ma ogi waxaad moodaa in gaalkacyo qiimo ka mid ah nafs ahaantoodii suufiyadan ay rabaan nimankan inay rabaan shacabka galmudug uu kala qiibsamay qiib nimankan la socoto iyo qiib maamul iyo kala dambeyn iyo dowladnimo iyo horumar iyo waxbarasho u baahan waxaad moodaa inay badan yihiin kuwa xumaanta rabo burburka galmudug arrintan way iska caddahayo halkan aan joogno caasimadda Soomaaliyeed baa laga buushiraynaya ama warkii run qaado amba adeeg ku taala halkan baa abaabulka meesha ani aan joogo ayay ka socda niman sarsare dad sarsare ayaa hawsha wato kuna talagalay mar hore nimankan keenay inay galmudug burburto ee wixii faa'iido ugu jirta aniga ma garan karo aniga ma ogi dhalashada dad isticmaalaya waxaad moodaa inay ka baxeen rag halkan joogo xafiis ka mid ah xafiisyada qaranka in qorshahaas laga abaabulay wax lagaga abaabulay hawshaas nimankan in lala wado wadooyinka loo banaynayo baabuurtaas ay soo gudbayso soona geli doonto magaalada Dhuusamareeb ay soo weeraraan baa ka go'an nafti horyaalka waxay diyaar u yihiin waxaana la yidhi amar buuxin wataado Kenya ay soo siisay in Soomaaliya gobol ka mid ah inuu dagaal ka bilowdo xabad in la rido waa laga maarmaan si Soomaaliya qiil loogu raadiyo si badan arrinteedii loo arqaladeeyo si beesha caalamka indhaheedii loo tusiyo loo maqashiyo dhagaheedii inuu dalka Soomaaliya dagaal ka soo arrintaas ay khatar waaye wax yar baa noo dhimin wax ka yar 70 saacadood baa ka dhimin badii ku dhawaaqistay 70 saacadood wax ka yar ayaa ka dhiman xaaladda meesha maraysa dhanka galmudug Soomaaliya marka ama galmudug hala burburiyo ama hala difaaco madaxweyne qoorqoor hal arrin khalad baan u arkaa inuu indhaha ka fiirsado kansarkan oo aanan wanaag iyo samaan waxba aanan rabin jidi jahdiidka ah ee argagixisada ah ee sun wal jamaa sheegtay deegaankaas hadda burburkiisii u kaba gashaday waxaa muhiim ah inaan dowladdu waxba sugin oo nimankan horey loo sheegay dagaalkooda 72 saacadood hadduu dhaafo meel fog baa laga raadinayaa galmudug tii bayna caawa maraysaa tii ayada ahayd caawa taagan tahay 18 gaari oo gaari dagaal ah inay caawayto waqooyi gaalkacyo ay transit ku yihiin oo shidaal lacaglaan ay siinayso Puntland oo intaasay soo galbisay oo dekedii ka soo qaaday oo imaaraad hadduu ilaahay ku roon yahay si alaab duul ah arrintii yani muxuu gacanta ula galay inaad fiirsataan
aniga horey aan u sheegay dowladda Soomaaliyeed arrintan waxaa loogu talagalay dalka inuusan doorasho gelin, galmudug inaysan doorasho ka dhicin, galmudug in la isku qabsado, gobol nabadeed in laga waayo, meel wax laga doorto labadii magaalo loo asteeyay Gaalkacyo iyo meesha la yidhaahdo Dhuusamareeb dagaalo sokeeye in lagu furaa la rabaa, in la dagaal geliyo ayaa la rabaa. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, shacabow waxaa meesha ku baaba'ay waa idinka. Shaakir caruurtiisa dibadii aaday, Macalin Maxamuud ciyaalkiisa waxaa ugu yar, Cabdisamad baa ugu yar caruurta macalinku, waxaa u yar Cabdisamad oo 70 jir ah. kuwa caruurtooda mustaqbal la-aan ku dhacayso, kuwa caruurtooda dugsi la-aan ku dhacayso, kuwa oonka duurka ku baabi'inayo, kuwa hadduu ilaahay kuroy gaajada baabi'inayso, wallahi waa shacabka idinka idintaala. marka 11 qabiilo meesha degan maamulkiina burbursada ama difaaca idinka idintaala. waxaan idinku soo duulay, la idiin soo adeegsaday Puntland ayaa la idiin soo adeegsaday, maamulka Aarinjan nimanka yidhaahdo oo dhibkoodii ah inay Puntland ay kabsanto, oo hadduu nimankan muxuu ahaa Aarinjan oo dhibkoodii ah galmudug inay dhisanto, dekedaas la furo, maamul ay hesho. sababtoo ah haydan yaa baabuurta loo dejin haddii reer galmudug maamul ay samaystaan, shamiintadii baabuurtii dekeda boosasyaa loogu soo raraa, heerkaasa la maraya. marka aqligeeda idinka og meesha wax ka bilaabi lahaydeen haddii baabuurta intay fakto gudaha ay u gasho 18 gaari 11 gaari cabdibila ah oo wada ishii ka saaran ayaa ma garatay. haddii baabuurtan caawa ay gudbaan oo la qaban waayo, galmudug waa u dhamaatay, galmudug waa u dhamaatay. waxaa si rasmi ah u gaaray magaalada Gaalkacyo maanta iyo shalay guddigii madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaleen uu magacaabay badbaadada shacabkii SNM-ta dhacday oo boobtay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. maanta 2 diyaaradood ayaa soo degay, 2 diyaaradood ayaa maanta soo degay oo runtii labadaas diyaaradoodna waa 2 diyaaradood oo hadduu ilaahay ku roon yahay dad shacab ah oo la dhacay oo la boobay ayaa waxay si toosa ugu digtay labadaas diyaaradood magaalada Baydhabo. deegaankoodii bay dib ugu soo laabteen. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. guddigii madaxweyne Cabdicasiis magacaabay uu hogaaminayay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda qorsheynta, aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynayaa. waxaan leeyahay maasha Allah, shaqo qaran baad qabateen. koonfur galbeed oo meesha laga doono waa koow, maxaad yaa ka gaartay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaleen. indhaha laga soo riday, waa la dhibaateeyey, wax walba loo geysan jiray. in wasiiro alaaduul ay Gaalkacyo dhexdeeda iyo Puntland ay ku degaan oo shacabkoodii dhiigu biima ah, shacabkoodii badbaadadiisii inay ka qayb qaataan, aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. khaasatan walaalkay saaxiibkay hadduu ilaahay ku roon yahay Axmed Madaxweyne oo runtii wasaaradahaas waqtigan xaadirka ah hormuud u ah. aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. si aad la socotaan waqti hadda muddo dheer laga joogo, waqti hadda muddo dheer laga joogo, sidaad la socotaan Aadan Barre Ducaale ayaa hadlay. hadalkiisii baan rabaa oo inaan mar kale Aadan Barre Ducaale
ayaa hadda kor wuxuu yidhi hadal sidaas oo kale ah sheergalay barnaamijka sheergalay barnaamijka ya hadalkii hadda ka hor laga duubay oo documentariga ahaa aada maray waa sida tan kaamirada inad ku adinaya sheergalay ya adduunya halkaan ba ya ala yaabay ismuhurtooyha isaleyn baa liya hadalkaa qosol igu dilay wallahi aadan ugu qoslayo bal idinkan ila daawud qoslo sheergalay وراني ما قصشان والبلقص يلا يلا ترى قصوا يلا عالم معها يا اوكي شعب الصومالية حرام مركنا ضمنتي على دين شيء أنا إذا لو ذاقو قدقة هنتي واجبات قليلة قلتني ولا لأنه حد منه وصل لعبتي إكران تهريب فيستو كل بعض الله سلطان بالمدينة يا دي إكران هيت دولة الصومال قد وصارتي كيس كذي بارستي سي صوته عدالة هذا الوجود الجرو أيا فيستو يبان كجرنا عمر لواد به كيسكي دي بلوسري يا وإكران تاني بدي لك وادن تاي لبي طبعا كش مر لواد هذا وحمر هذه يا رئيس الوزراء هي أبودي سوست الله نجي إنه مر لواد وحمله أيا الرب معنا الله ديره لقنا في استخلافات دولة الأحياء دي وإسخلاف سنتين دي هذا هشيس بادعي ولا سير أفكارتي أفضل مخالط كيس موقعتي ذلك وحصون قال أبوجيه مثلا أبوجيه السيد فهد ياسين أو أركتيس أبشر مضل كيسي خير أيا يميت حالده ويدقن السرديه غير دانتي يا دولا يكون يا وحي بغبغدي وحي ودن ويدقن يا والله سي wax walba waa la arkay everything waa la isla arkay kiiska iyo wax walba wixii oo dhan waa si yani muxuu ahaatay madaxda raggii arrintan xafiisyadii qaar ay lugaha la soo galeen oo wixii la isdaba mariyay wixii waa la arkay waana la ogaaday ra-iisul wasaaraha wuu ku qancay laakiin ra-iisul wasaaraha mar hore isaga xablalaaday soo maha maanta waa loo soo fadhiistay waxaa la yidhi cadaalad ma rabnaa kaan cadaalad bay rabtaa fiiskii baa la yimid kuraas baa lagu raadinaya waxaan arkaya qolo xildhibaano ah qof xildhibaan ah oo beeshii uu asaga ka dhashay kursigiisii qiilqiil galay inay ikraan ay jaraanjir u noqoto kuna doodo qabsato ay noqoto hadduu ilaahay ku roon yahay
doon ay webi kala gudbayso. waa yaabanahay dhibaatadii dib bay usoo laabatay waan isla aragnay. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ha qadaro. waxaan waxay noqotay waa mashruuc waaye, waa mashruuc. maalmahan waa la aamusnaa shishe, waa la yara aamusay. haddana meel kale ay ka biishubatay. ilaan wixii wax dalkeeni dhexdiis laga maamulo maaha, waxaa wax oo gacmo shisheeye waaye, waxaa wax meelo kale brogaraami meelo kale ay ka socdaan waaye. ilaahay baa naga og meel laga wado. waxaan ku wareernay waay ya dabka mar buu kacaa, mar wuu demi, mar wuu kici, mar wuu demi. marka dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa madaxda qaranka soomaaliyeed, war inaan qof shaksi aan loo danaynino. ya amiir fahad xogtii uu hayay inuu bandhigo, bulshada u sheego, oo maamada dhegada ku maqasho oo ay aragto waxaan yani muxuu shimbiriyo heesa in la iska daayo. xaqiiqdii maamada iyo nimankii mar hore barnaamijkan kicinayay oo mucaaradka ahaa, markii kiiskii ayaga lagu caddeeyay ay wax la galeen, musqushii abti xasan hadda ka hor sheegay, markay lugaha la galeen gadaalay u degay. hal nin oo mucaaradka kaamid aragtay, hal nin ya sababtoo ah telefoonadii meel walba, caddeymihii, howlihii, isla hadalkii, waqtidii u dambeysay, kaamirooyinkii, wixii oo dhan waa la isku sheegay. haye ya way fiicnaan lahayd wasaare asiga maadaama barnaamijkii loo sheegay uu arkay, asaga naftigiisa qancay, inuu gardarnaan u ogaaday, garabsaday, arrintan ikraar uu ku fudaaday. waxaa la rabay inuu u yeero qoyska u sheego runta. nimankayuusan sumcaddooda dhowrin. hadduu sumcaddooda mucaaradka sumcaddooda hadduu dhowro, kiiska meesha laga soo abaabulay iyo qaabkii u dhacay wax walbo waa loo sheegay. magan waxbuu dhowraya marka. rag odayaal ah waaweyn oo garle madax soo noqday, oo ra-iisul wasaarayaal lahaa, ku-xigeenno lahaa, wasiiro lahaa, madaxweyneyaal lahaa, ayaa kiiska lagu hadla galay. ya marka barnaamijkii waxaa la rabaa raggan yaa la eebeynaa lii ra-isul wasaare wax buu dhowraya yuusan dhowrin. ra-iisul wasaare maamada runta u sheeg, gabadha qaabkeedii iyo xaaladeedii, wixii adiga lagaa ogeysay aad ka ogaatay sheeg. iska daa arrintan, sheeg, shacab ka qaad, u yir. galkii rug waa la addeeya. waxaan wax meelaha dhaafsina ma ahayn. xafiisyadan kala shaqo kuma laha. xafiisyadan oo maalin walba la xagxaganayo. madaxweynahan shaqo ku lahan jamhuuriyadda soomaaliya, agaasimihii hore nabad sugidda qaranka soomaaliya ahna la taliya madaxweynaha waxaan shaqo kuma lahan. ma garata waxaan wax meelo kale oo gacmo kala soo abaabuleen way oo lagana raadinayo. kombyuutarka gabadhaas ay haystay oo sirtii qaranka ku jirtay ciidamadii ayaa la raadinaya. wixii markii yani muxuu ahaa laga dhigin wax siyaasadaysan. haddii kale xisbiyi siyaasadeed oo mucaarada laska furto, dowladda si kale loo mucaaradi karaa, si kale looga hor imaan karaa, yani muxuu ahaa qaab kale ha loo sameeyo. nimankan aamusay ina abshakuur iyo mahad salaad, gabadhan iyo madaxweynihii hore soomaaliyeed iyo shariif sakiin iyo raggaas ma dhaafisado. arrintan waa la wada ogsoon yahay. yaan indhaha la istarine arrintan meeshay jirta laga cabaaro. hooyada soomaaliyeed waxaan leeyahay, baaristan markay soo dhammaato, dowladda waxaa go-aankeedu u yahay gabadhii ikraar ahayd meesha ay jirto. adiga haddaadan ogeyn in la sheego, dowladdu way ka go-on tahay. ilaa intaas adiga mudu qaadan kartaa, ma aamusi kartaa. intii baddan kiiskeed uu ka dhammaanay ma naga aamusi karta maamul? ta ilaahay ka yaabtay. gabadhaan hooyadan dhashay ikraan ayaa la hadlayaa. gabadhaada ilaahay gabadhaada hanoo sahlee, bal kiiskan badda intuu ka dhammaanayo waswaas hana gelinin. shaydaan ummadda ha ku noqonin maamo. ilaahay ka cabso, isdeji. badda markaan soo dhammaysano, markaas ka bacdiyaa lagu soo jeesanayaa. tartiibso, ilaahay ka cabso, tartiibso. ya boqolaal ruux oo reer koonfur galbeed ah, 700 oo ruux
hantidoodii baa la dhacay waana sabarsannahay wiilnaba ka yaraba waa sabar 700 oo qof hantidoodii oo ninka ugu lacagta yaroo laga qaatay oo gurigiis laga dhacay 11,000 oo dollar lacag 11 milyan oo dollar oo ku dhawaad oo reer koonfur galbeed ay lahaayeen ay SNM dhacday ya magar SNM ayay dhacday waana la dhacay ya maantana waxaa waaye dowladihii malaha yani muxuu ahaa dad maanta calaacal iyo problem iyo dhibaato ummadii ku haymanyihin kullu nafsin daa'iqatu lmowt qof walba geeri bay dhamanaysa qof kasta wuu dhiman aniga waa dhiman maam adiga waa dhiman gabadhaada waa dhiman waa dhimanaysa aabeeda wuu dhiman cid walba qof yani muxuu ahaa koomkan ilaahay uumay yah qofna kuma harayo qof kasto sabab ayuu dhiman likulli shayin sabab shay walba sabab ayuu leeyahay ma garata marka hadda mar labaad barnaamijkan maalmahan waad aamusneed maalmahan waad qanacsaneed maalmahan waad u riyaaqsaneed gabadhaadii hadduu ilaahay kuran kolba arrinteedii borosaiska meeluu marayo waad og tahay xukunkan ka warso baaris noocan markii la galana waqti bay qaadanaysa waxaan arrintaa waxay rabtaa gungaaray u baahan tahay in la baaro in la ogaado wax dhab ah ayaa loo baahan ma garata waxaad ku eedaysay warqad baa nisa 2 bishii ee soo dirtay baa tiri warqadaas raadiyo muqdisho dadkii ka shaqeynayay ee dowladnimada nibcaa dowladnimadu dadkii nibcaa baa qoray warqadaas ayada ah ma garata ya dowladda Soomaaliya kama soo bixin raadigaas afduubu ku jiray waa la haystay raadiga madax fuusha loo haystay qaranka gacan uguma jirin ciddii raadiyaha qabsatay oo la wareegtay iyo TV ayaa warqadaas qortay ayada un weydii meeshii ay warqadaas gabadha shabaab ay ku dileen kuwaas weydiin muddo dowladda shacabku malaha hada qaranka hasha lillah فهذه أسيها ظاهر يا قاب كرتي وحنا حكمامه يا ضد اللي قلت توكت ما ربطي قلته إن ضد اللي قلت توكته يا ضد اللي قلت توكته مية ربطي سبع ورد حكم كان قامنا عواي عديسو يا ما سور قلبنا wax abba la isku toogtaa meeshaan وعليكم السلام إكرام تهليل فيستو أي صور بقى على سي مرة لبعض سولو معمد يا صور معمد يا تبي المام السلام عليكم وعليكم السلام سولو ودوا اسمع ودوا الدوامة في المحل الدوامة بشتي بلاد ما بكر بريسان محاول بريتان يا الله بري دوامة أخلاق بحلو بلاد تطرني وش gabadha meesha ay ku baqato way ogtahay gabadheedu meesha hadday dhibatana way ogtahay hadday xiran tahay way ogtahay hadday dooftayna way ogtahay waan u jeeday caayayso maxaa la yidhaahdaa in farmaajo ku caayayso waana horena waan ugu sheegay afka carabkaa laga jaraa la yidhi gabadhaas sababtaas carabkaa laga jaro gabadhaas habarka waa loo waayay wax la baryaya annaga baryada naga jooji baryada naagtaan waa naag akhlaaq xun waa naag u socota maxaa la yidhaahdaa ii sheeg dad hadalkiis ku socota weeye gabadheedu meeshay jirta way ogtahay dowladan oo 30 milyan ayay waxay dabcday inay u jajabiso oo maxaa la yidhahdaa ugu celiso 1991 ugu celisay barya islaamtaana wax kuma haydan maxaa la yidhaahdaa maxkamadana way soo baxaysaa habartaana gabadheedu waan u sheegaynaa markaan u sheegay gabadheedu haddii la dilay
waayo oo dambiga ay dowladda Soomaaliyeed ka gashay oo ay dabacday umurka hay'adda lagu jirka ugu dhufato oo ay dabacday inay aqaanayaan calanka dhan ee Soomaaliya ciidda la gasho alaabada baadona meelaha dalada wareegana dadka ku jirta wareegana dadka ku jirta ajay caadiga xafiiskii waxay soo gashay ra'iisul wasaarihii luujoy caawa 4 saac markay ahayd fiidkii gaalkacyo waxaa soo gaartay 18 gaari oo tiknika ah oo yaa Salmaan odayaashii suuqlayaashii hadda kor hal xil aad tiri loo wado galmudugna waa la hadlay dekeda boosaaska ka soo shaqaaleen baabuurtaas gaalkacyo soo gaaray dhanka waqooyiga maxaa arrintaas ka dheelayd
absolutely luujo absolutely gudoomiye sax waa gudoomiye aad haye ma waxaad leedahay garow hubkaas garowa dib loogu burburin doono maa tiri إلى آخر قصة وسجينا الله يعزك الله يعزك والله والله بس تليفون قارن بوصو شيء أنا وما صنتها لوجو وما صنتها الله يعزك لوجو ما هذا قارتو وقدم كحجين في الجرم متقرن ويأمرك إن شاء الله تعالى خير قلبي كوبكاس يسني نافي قلبي كدير بتوعي جرتو عدم البكو يتوقع قبيل مع غيره كوبكاس دوق عنتنا كم بحق بنتلاند صادرت إمارات السعودية إن قلب الوب بربريو لو تلاقي والله بالله من الفضة كره هذه الإنسان قلب ذوق ولكن قرقرنا قلب يجري عكس كم عفو لمن كان مدعوين قرقر أضو ولا لها آلان حيرين شرع مرسينين دول كلطومين حكم كان مصر نبكي يا قوي ديجان يا مدحوينه أديك عاصمتي واحد ماشاس أو أديك أنت أما بيوينتها من الجدير يا مدحوينه ماشى من الجدير عاصمتي يا أبو بدل من الجدير هاي وحول البوق عن تلاتينك اسمها عبد السعود كده يا أبو بدل وماشي هاي كم قد كردها الأرور داي وهذا إن شاء الله وعليها مدحوين قرقورو صومالي أو دن أو لوايو إلا وذا وذاك أو الشرع لمرسيو لوذا وذا الشرع لمرسيو كفضل أرنتا كبرى بنتلاند وأدب كوات الجلب أنا سعيد عبد الله هندري الشعب معه مامك أرنجان جريتان كجل مذوب القطع شعبنا مامور كودا على شقيان بابور تاش سديد توكس جاري أو كعليو كو يطبن عبد البلي كو يطبن عبد البلو لبا جاري أو بويد كو شدار كبلاده سدح يطبن لبا جاري أو بندول بنانا شن يطبن سدح جاري أما بربي كوي طبن لو قدر سندعي طبن يودي قدر أفري طبن
waxaa ku dartaa 2 gaari oo Land Cruiser kuwa aan xabadaha karin. baabuurtan totalkooda waa 18 gaari waa 18 kan gaari caaway soo galeen 10 habeenimo ay soo galeen boosaa baashida gaalkacay meel ay mari doonaan ma ogi. baabuurtaas hala qabto baabuurtaas hala qabto baabuurtaas hala qabto baabuurtaas hala qabto baabuurtaas hala qabto. waa maasintii. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.